Marka aad eegto qariirada dunida, waxaa muuqata in dalka Morocco oo ku yaalla waqooyiga Afrika iyo Spain oo ka tirsan Yurub ay isu jiraan masaafo dhan 14 kiiloomitir oo keliya. Masaafadaasi oo aad u gaaban ayaa dhalisay su'aal ay dad badani isweydiiyaan: maxaa ilaa maanta loo dhisi waayay buundo isku xirta labadan qaaradood? Haddii buundadan la hirgeliyo, ma aha oo keliya in ay isku xiri lahayd Spain iyo Morocco, balse waxay noqon lahayd isku xirka ugu horeeya ee toos ah ee u dhaxeeya qaaradaha Yurub iyo Afrika. Fikradan ma aha mid cusub, waayo tan iyo dabayaaqadii 1970-yadii ayay dowladaha Spain iyo Morocco ay bilaabeen daraasado lagu eegayo suurtagalnimada mashruucan. Sanadkii 1979 waxaa la sameeyay guddi wadajir ah oo labada dal ka dhaxeeya si loo qiimeeyo sida mashruucan loo hirgelin karo. Waxaana xigay daraasado iyo qorshayaal farsamo oo socday muddo 10 sano. Hase yeeshee ilaa iyo maanta mashruucan ma uusan dhaafin heerka qorsheynta. Marka hore, masaafada 14 kiiloomitir lafteedu ma aha caqabada ugu weyn ee dunida. Dunida waxaa ka jira buundooyin badda ka dulmara oo aad uga dheer sida Atalsetu ee dalka Hindiya, Crimean Bridge ee Ruushka iyo buundooyin kale oo ku yaala Mareykanka iyo Shiinaha. Sidaa darteed, dhererka buundadu ma aha sababta mashruuca uu hakaday. Caqabada dhabta ahi waxay ku jirtaa juqraafiyadda marinbiyoodka Gibraltar. Halkaasi waa goob ay ku kulmaan badweynta Atlantiga iyo badda Mediterranean-ka, taasi oo sababtay in qulqulka biyuhu uu noqdo mid aad u xoogan. Biyaha labada dhinac waxay leeyihiin cufnaan iyo cusbo kala duwan, taasi oo dhalisa hirar iyo qulqulo gudaha badda ka socda oo awood badan, kuwa oo xitaa dayax-gacmeedyadu ay awoodaan in ay sawiraan. Intaasi waxaa dheer, qoto dheernaantu badda ee meesha ugu dhow waxay gaaraysaa inta u dhaxayso 900 ilaa 1000 mitir. Taasi waxay ka dhigaysaa mid aad u adag in la dhiso tiirar waaweyn oo qaadi kara culayska buundo noocaasi ah. Marka la barbar dhigo buundooyinka badda ee ugu weyn dunida, intooda badani waxaa laga dhisay meelo aad uga shalagsan oo qoto dheernaanteedu aad uga yar tahay midda Gibraltar. Dhibaatada kale ayaa ah in gunta badda ee marinbiyoodka aysan lahayn dhul adag oo lagu taagi karo saldhigyo waaweyn. Carrada iyo dhoobada jilicsan ee ku jirta gunta badda ayaa sii adkaynaysa dhismaha aasaaska buundada. Sidoo kale, marinbiyoodka Gibraltar waa mid ka mid ah marinada ganacsi ee badda ugu mashquulka badan caalamka. Kumanaan maraakiib xamuul ah ayaa sanad kasta halkaasi mara, iyagoo isku xiraya badweynta Atlantiga, badda Mediterranean-ka, kanaalka Suez iyo suuqyada Asia. Maalin kasta boqolaal markab ayaa halkaasi ka gudba, taasi oo ka dhigan in buundo kasta oo la dhisayo ay qasab tahay in ay noqoto mid aad u dheer oo maraakiibta waaweyn ay si nabadii ay uga hoos mari karaan, isla markaana ay u adkeysan karto shilalka iyo culeysyada ka dhalan kara isu socodka maraakiibta. Marka laga soo tago fikradda buundada, injineero badan ayaa soo jeediyey in la dhiso tunnel train oo badda hoosteeda mara, sida Channel Tunnel ee isku xirta Ingiriiska iyo Faransiiska. Hase yeeshee, qorshahan ayaa isagu wajahaya caqabado la mid ah, maadaama qoto dheernaanta badda ee Gibraltar ay 3 jeer ka badan tahay tunnelka ugu qotada dheer ee dunida maanta jira. Waxaa intaasi sii dheer in gobolka Gibraltar uu ku yaallo xadka ay ku kulmaan saxanada dhulka ee Afrika iyo Eurasia, taasi oo ka dhigaysa goob ay si joogto ah uga dhacaan dhulgariiro. Taariikhda gobolka waxaa ka dhacay dhulgariiro waaweyn oo burbur baaxad leh sababay, waxaana khubaradu ay ka dhigayaan in dhismo kasta oo halkaasi laga hirgeliyo uu wajahayo khataro dabiici ah oo joogto ah. Inkastoo dhammaan caqabadahaasi ay jiraan, rajada mashruucani weli ma dhammaan. Sanadkii 2023, dowladaha Spain iyo Morocco waxa ay dib u howlgeliyeen qorshihii tunnelka tareenka ee isku xiri lahaa labada bad. Sida qorshayaasha hadda la soo bandhigay ay sheegayaan, tunnelka waxa uu mari doonaa waddo ka dheer meesha ugu dhow ee labada dal ay isu jiraan, waxaana la qiyaasayaa in dhererkiisu uu gaari doono ku dhowaad 40 kiiloomitir. Mashruucan ayaa la filayaa in uu qaato ku dhowaad 15 sano haddii uu helo maalgelin iyo ogolaanshaha farsamo ee loo baahan yahay.
sida awgeed sababta aan weli loo dhisin buundo isku xirta Yurub iyo Afrika ma aha tiknoolajiyad la'aan ama dhaqaale oo keliya. waxaa jira caqabado isbiirsaday oo ay ka mid yihiin qoto dheernaanta aan caadiga ahayn ee badda, qulqulka biyaha oo aad u xoogan, gunta badda oo aan degnayn, maraakiibta ganacsiga ee si joogta ah u mara marinbiyoodka, iyo khatarta ama khatarada dhulgariirada halkaasi ka dhici kara. Inkastoo injineernimadu casriga ay gaartay heerar aad u sarreysa, haddana hirgelinta mashruucani ayaa weli loo arkaa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dhinaca dhismaha iyo kaabayaasha dunida. waxaa intaasi dheer dabeyle xooggan oo si joogto ah uga dhaca marinka, kuwaa oo adkeeya howl kasta oo sahmin ama dhismo ah. xaaladahan dabiiciga ayaa muddo dheer caqabad ku noqday maraakiibta cilmi baarista ee loo diray in ay sahmiyaan gunta badda, iyadoo qaar ka mid ah qalabka qodista uu xumaaday ama uu shaqayn kari waayey. Markii sahanadu sii socdeen, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in jidka ugu gaaban uu leeyahay gun badeed oo aad u qoto dheer, meelaha qaarna ay gaarayso boqolaal mitir. waxaana sidoo kale laga helay carro dhooba ah iyo dhagaxyo aad u jilicsan oo aan awood u lahayn in ay xambaaraan tiirar waaweyn oo buundo lagu taagi karo. meelo kalena waxaa ku yaala dhagaxyo adag oo qodistoodu aad u dhib badan tahay. isku darka labadan xaaladood ayaa ka dhigaya in dhismaha buundo ama tunnel uu noqdo howl farsamo oo aan la barbar dhigi karin mashaariicdii hore ee dunida laga hirgeliyey. caqabada kale ee culus ayaa ah in marinka Gibraltar uu ku yaalo goob ay ku kulmaan saxanada dhulka ee Afrika iyo Eurasia. dhaqdhaqaaqa joogtada ee saxanadan ayaa gobolka ka dhigaya meel u nugul dhulgariirada. injineeradu waxay rumaysan yihiin in mashruuc kasta oo halkaasi laga hirgeliyo uu qasab ku noqon doono in uu adkaysto dhaqdhaqaaqyo dhuleed iyo gariiro imaan kara 10 sano soo socda. si kastaba ha ahaatee, mashruucu kuma xadhibna oo keliya caqabadaha dabiiciga. xiriirka siyaasadeed ee u dhexeeya Spain iyo Morocco ayaa marar badan dib u dhigay qorshahan, gaar ahaan muranada la xiriira magaalooyinka Ceuta iyo Melilla iyo arrimo kale oo diblomaasiyadeed. mar kasta oo xiise siyaasadeed soo baxdo, qorshaha tunnelka ayaa dib u dhac ku yimaada, inkastoo labada dal ay marar badan dib u xaqiijiyeen muhiimadda mashruucan. maanta isku xidhka Yurub iyo Afrika waxay weli ka mid tahay mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee aan weli rumoobin. khubaradu waxay aaminsan yihiin in haddii tunnelkan la dhiso uu si weyn u bedeli doono isu socodka dadka, ganacsiga iyo isku xidhka qaaradaha. wuxuu gaabin doonaa waqtiga safarka, wuxuu kordhin doonaa ganacsiga, wuxuuna noqon karaa marin cusub oo muhiim u ah dhaqaalaha caalamka. hase yeeshee, inkasta oo teknoolojiyadda maanta ay gaartay heer aan horey loo arag, marinka ama xuduudda Yurub ee badweynta ku yaala ee Gibraltar loo yaqaano waxa uu weli xambaarsan yahay caqabado dabiici ah, farsamo iyo siyaasadeed oo ka dhigaya in riyadii lagu midayn lahaa Yurub iyo Afrika ay weli sugayso maalintii ay dhab noqon lahayd.